الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaan ku duubaynaa dugsiyada hoose dhexe ee cigaal schools casharka tarbiyatul islaamiya fasallada lixaad cutubka casharkuna waa cutubka sagaalaad casharkiisii koobaad ayaanu halkan ku duubaynaa iyo aniga oo ah macallinka tarbiyada. ardayay assalaamu calaykum, meel aad joogtaanba waan idin salaamayaa. bacda salaan, casharkeennani wuxuu ku saabsan yahay alimaamu maalik ibnu anas, imaamkeennii weynaa ee maalik ibnu anas ayuu casharkeennu markaa waxa weeye uu ku saabsan yahay. a'immada madaahibta afarta ah mid ka mida weeye markaa alimaamu maalik ibnu anas. casharadii markaa kalaaskii shanaad waxaad ku soo dhigateen a'immada madaahibta afarta ah. markaanu a'immatul madaahib markaan ka hadlaynana waa madaahibtii fiqigii wey. islaamku markaa adduunka fiqiga uu haysto afarta imaam ee markaa waxa weeye a'immada markaa madaahibta la yidhaa. afartaa imaam ee uu ugu horreeyey alimaamu abu xaniifa, yacni waxaan ka hadlayaa a'immada markaa waxa weeye afarta ah ayaan markaa waxa weeye tilmaamayaa magacyadoodii oon ku yar xasuusinaya. hore waxaad u soo qaadatay alimaamu abu xaniifa, waa kii koobaad weeyi. maanta halkan waxaad ku qaaranaysaa alimaamu maalik ibnu anas. waxaa kaloo duruustay noo soo socda markaan ku qaadan doonaa alimaamu shaafici. waxaa ku xigi doona oo kii afraada imaamu axmed binu xambal. a'immadaa markaa afarta ah iyo markaa waxa weeye sida markaa ilaahay diinta markaa uu ugu xifdiyey iyaga iyo siday u soo ururiyeen qawaacidda markaa waxa weeye shareecada islaamka markaa ay u sugeen ee ay u dadaaleen ayaa markaa waxa weeye taariikhdoodii bal wax ka mida markaa aan ka qaadanaynaa. imaamka markaa darsigeenna ku soo arooray oo imaamu maaliga ayuu casharkeennani ku saabsan yahay. inteynaan casharka horta gudagelin ahdaafta casharka haynu tilmaanno. waa maxay ujeeddada casharkan markaa waxa weeye laga leeyahay ee aanu qaadanayno? kow, waxaa laynoo sheegayaa maadaama a'immadan markaa madaahibta ee afartii qofka islaamka inuu barto ay waajib tahay, bal taariikhdii noloshii ay soo mareen inaynu wax ka qaadanno. kow, tilmaanno ismuhu magiciisa imaamkan. laba, wilaadatuhu markaa goortuu dhashay. saddex, ijtihaadu limaami fii talabi alcilmi, imaamku siduu u ijtihaaday u dadaalayay talabalcilmiga markaa waxa weeye cilmiga dalabkiisii. shuyuukhuhu culimadii markaa cilmiga uu ka qaatee macallimiinta u ahayd. qodobka shanaad waxaan kaga hadli doonaa oo ahdaafta ka mid a talaamiiduhu, ardadii cilmiga isaga ka qaadatay. lix, waxaan ka hadli doonaa mu'alafaadka kutubta ee markaa waxa weeye uu dejiyey. markaa waxa weeye kutubtaa uu dejiyey qaar ka mida markaa way noo soo arooreen oo buuggeenna inoogu yaallaan. toddoba, waxaan ka hadli doonaa culimmadu markaa maxay ka yidhaahdeen imaamka, shahaadada markaa waxa weeye ay siiyeen, iyo ugu dambaysta markaa wafaatuhu, dhimashadiisa markaa aan ka hadli doono. markaa haynu ku horrayna ismuhu magaciisa. buuggeenna waxaa ku soo arooray marka ugu horraysa waayo haddii lagu weydiiyo alimaamu maalik. imaamu maalik cidduu yahay waxa weeye axadu ala'immati almadaahibi alarbaca. jawaabtaa waad ku kaabsan kartaa. waa mid ka mid a a'immada madaahibta ee afarta. madhabkiisana waxaa la yidhaha mu'asis, waa ninkii dejiyey wey seeska gundhiga seeska u dejiyey markaa qawaacidda u taagay almadhabu almaalikiya, madhabka maalikiyada. innagu waxaanu haysanaa madhabu shaaficiya. maalikiyana waa madhabka markaa waxa weeye imaamu maalik madhabkiisa wey. marka madhabka ciddii markaa waxa weeye aasaastay ayuu markaa ka mid yahay imaamu maalik ibnu anas. haddii markaa lagu weydiiyo lagu yidhaha waayo oo su-aasha kuu timaada ay noqoto waayo maalik ibnu anas, waxaad odhanaysaa waxay axadu a'immati almadaahib alarbaca, waa mid ka mida madaahibta afarta. imaamkii markaa madaahibta afarta ayuu ka mid yahay wey. waana mu'asisu lmadhabi almaalikiya, madhabkan maalikiyada ninkii aasaasay ee dejiyey sheekhii aasaasay wey. magacyo kalena markaa waxa weeye kutubta qaar waad ku arkaysaa. waxaa magacyadiisa markaa waxa weeye qaar lagu idlaaqay la yidhaa huwa shaykhu lislaam, waa magaciisa wey. xujatu lumma, imaamu daaru lhijra,
عالم المدينة iyo wax kale markaa kuwa kale markaa kuugu yaala buuggaaga markaa waxa weey inagu waan soo gaabinayno soo koobid bay markaa naga ahayde intaasan markaa soo qornay markaa buuggaaga wixii kale waad ka akhrisanaysaa ولد الإمام إمامكم مركا إمام مالك بن أنس وحكون شيء في المدينة هل كأوفيرس مدينة كل شيء وسؤالها اللي سويدين هل كل شيء بالجويدينية وحول شيء سنة كي مركا وحوي 93 الهجرة صدق هي السجاشن كي هجرية دي أيوم مجالة مدينة مركا كل شيء مالك بن أنس وايهي وحال مركا تلمامي دونا مركا دلشديسة مجلسة كدي بعد كسب حني وحكلو مركا وحوي عن شيء وأن هل كان مركا كنت المامينا اجتهاد كي علمي جيسا سيدو اجتهادي طلب كمركا علمي جيسي مركا قاب كو ضلبي أي مركا وحوي هل كان إنوغا هلا بل هل كان في رسها الدار ضيي طلب مالك بن أنس العلم علم الطلب مركو علم الطالب والنقضي علمي مركا وحوي قابب كي علمي مركا وقاتي وحب بلابي طلب العلمي جي وحب ضنبا مركا بوجي نيدكويا لك هذا آخر سنة لكن نجوا إن يروا وحوي سو كوبيد ما لها سؤاله هاي كاجا إيمان كراموي طلب مالك بن أنس العلم علمي وحو ضلبي وهو ابن 11 سنة يسقط دورية تمنشرة أي علمي مركا وحوي برشدي سمركا وان ببحي أو علمي طالب كي مركا أو برتي مركو الددالي الددالينا بل هذا وفير سهل كاير أرضي الكاير نقن اللين كان هوس مرينا يوم ولا جلس وحو فريستي للإفادة إن أفائدة يوم مدى أو مركا مسائش علمي وكتشوابه ولبا إسقوا فضواها قارد ميلها قارد كبحنايا وله 21 سنة إسقوا كوبي لبا تنشيرا دادي سؤال هلكا مريسو وداد مركا وحوي دادي سؤال على دورية تمنشيرنا بلابي دورية كوبي لا تنشير مركو مرينا مسائش علمي مركا إنه كتشوابه أي أفر يستيسقوا مدى أفايدينيا أي مركا وحوي إمامكم مركا وحوي مسائش علمي مركا وكتشوابه هلكا مركا إنه كجسوا بحنو هل كان واحد كشيء شيوخ مالك بن أنس علماء علمي أو كقاتي مالك بن أنس علماء بدن بام علمي أو كقاتي مركا وحوي في اختلاف منهجهم علماء أو كقاتي بوجا مركا وكسو أرورين قار بدن لكن إنه وحنا من قاضني إنه سوكو بينه وحكى لنا مركا وهوس دي وحوي وهوس قال يانو هل كعوان كان لين كان هوس مريبي كوجي لامبو جاجا أول شيخ يقول الرئي علمك تلقى عنه علمك وكقاتي إمامك الشيخ يقول الرئي علمك كقاتي وحل أورنشري ربيعة الرأي وما يعيسي لسوق يبوغا وكوكويا لا كاسو مركا علمك كقاتي وايه انت هداك سجنا كجبحو وحال هلك وحكت المامينا تلاميذه أرضي سجى علمك كقاتي تلاميذ مالك ابن أنس مالك مركا وحوي يا علمك كقاتي بوغاغي كوغو تالا أرددي مركا علمك كقاتي إنه لكن وحسو قادني عدة أغو عانسان أردديسا أو أمركا مذهب كان إنه هيسانو مركا معلن كينا إمام كينا مركا إمام الشافعي أي أردديسا كميد أهاوي أردي فربضنا بوغاغي كوغو تالا أردداسا مركا وحوي وحكميد أها الإمام الشافعي وحوها أرددي علمك كبرتي إمام مالك أيها تاسنا وأرددي سوي وحي كلام مركا أرددي فربضنا كسار ربو قاق كأيك وحكلون هل كان مركا وحوي كوشيغيا مؤلفات الإمام مالك بن أنس كتبته وألفي ودجي مالك بن أنس كتبته ودجي صدح كم دعيان هل كان كسار قادني قارب أبو قاق كوغيا له وحليه هي مالك بن أنس كتبته ودجي وحكمذا له وحليه كتاب الموطأ كتاب الموطأ السجع أيام مركز دجي ورسالة في الوعد كتاب كالمركز الرسالة في الوعد السجع أيام دجي وكتاب المسائل هي كتاب كمركز وحي كتاب المسائل مركز مجا الله أيود دجي والسهل كاسي صعصي وذا كتبتك كلنا مركز وحي كوجت الله بوجاجي كوجت الله هل كواحد نقول قال لنا هيون إنه مركز هدي سؤالي نقول ما ضل إلى شاق إمام كمؤلفات ككتب تودجيه قار كم من الشاق صدق وانا لك كوشاق نوحي كلا هالكاسي كوجي لا وايه وحكلون مركز وحوي أن يدنا مركز وحوي تلمام إن نسدل تاجنا إنير إلا وحوي علماء مركز وحوي إلى هاي كحفاظي دين تاني إمامكو ما حيكي لهذين مركز بل هذا هالكايرو فيرسار ضي تاير بل هذا فيرس تايرين هرود يرساري وثناء العلماء
culimadu siday u ammaaneen cala al-imaam Malik ibn Anas siday u ammaaneen shahaadadii la siinay siday markaa u ammaaneen culimadu markaa iyo wixii ay ka yiraahdeen Malik ibn Anas huwa qala al-imam ash-Shafi'i imam ash-Shafi'i baa weed markaa ka yiri buugaagay kugu taalay halka ay ku taalay halka yar ciwaanka yar huruudda inta yar saaray waa tabuugaaga kugu taalay ka eeg aqwaashi markaa ay ka yiraahdeen markaa culimadu inagu waxa soo qaadanay dhowr qowl baan soo qaadanay inta badan markaa imam ash-Shafi'i ayaan ka soo qaadanay imam ash-Shafi'i wuxuu yiri lawla malikun haddii Malik aanu jiri lahayn aanu joogeen وابن عيينة إيه مركا ابن عيينة هدي آني تشوغين لذهب علم الحجاز وحتى لها علم مركا أرض الحجاز ما أنت لقوها يستا لما هلين وي الددال كوغي إيه مركا وحوي علماء سو قواعد النقطة مركا تيرر النقطة إن مركا وحوي علمي مركا حفاظيان أو إلاليان أو الدجيان أي كسق نادي ليه إمام مالك إمام الشافعي هذا وير كلو يري إمام قال الشافعي شافعي هذا وير كلو كيري بوجينا مركا كسو أروري أو تلماميو وير دا وحو يري مالك ابن أنس معلمي مالك ابن أنس ومعلم كي يجيبوا لشافعي وعنه أخذت العلم علمي أنا إستجع كقاتب ليه أو مركا وحوي سرو سعطان واحد أركي دونتان سلسلة ده أحاديث ده مركا قار كود يدو اللورين يوم إستجوا سلسلة ده حديث ومركا مرة يوم مالك ابن أنس أو مالك عدة كما قاشي أي تهي شافعي يا دار كيسا السجن علمي كقاتب مركا إمام الشافعي مركا وتلمامية هذا كان وحيلي قال الربيع بن سليمان أيا وحلي سمعت الشافعي يقول شافعي بان كما قال السجن أوله إذا جاءك الحديث بل هذا هلك أوفيرسو إذا جاءك الحديث عن مالك حديث يورين حديث لورين يهدو سلسلة ده مالك صامره فشد به يديك قعنت هذا كله كو أكى maxaa yeelay xadiiskaasi waa saxiix baa loo jeedaa hadduu Shaafici soo maray xadiiskaasi waa saxiix buu markaa u jeedaa qaala al-imaam Malik bal hadalkiisan eeg wuxuu yiri al-ilmu nuurun ilmigu waa nuur iyo iftiin yaj'aluha Allahu haythu yasha ilaahay wuxuu dhigaa meeshuu doono ayuu dhigaa ilaahay cilmiga laysa laakiin ma aha cilmigu bikathrati riwayat rawarinta oo qofku uu farabadiyo oo warinta cilmiga uu farabadiyo cilmigu markaa waxa weeyi ma aha buu leeyahay markaa imaam Malik qala ibn wahb wuxuu leeyahay sami'tu malikan bal hadda halka u fiirso مالك بان كم مقلي يقول يسقوله ما تعلمت علم إلا لنفسي علمي أمام برن وحكله إلا إنه أنيجا ينفعه نفط يدوم بانو برتي إن أنا نجو أنفعه أنا نجو انتفاع عن علمي أوبرتي بوليه وما تعلمت لكن سأمام برن ليحتاج الناس إلي ضدك إني أنيجا بهذان أو أمض مركا أي أنيجا بهذان أمام برن وكذلك سدا سارن تهاي كان الناس ضدك مركا سدا وي أي وحجة ضدك ما العلماء علماءنا سدا أبانو هيستاوين أو قف كاستباع علمك إنه أبرنا ينفتيسا إنه إسقو مركا حق يا مركا حلاشة مركا وحوي حلاشي يا مركا حاران تيسكا إلاليو حق يا باطل كاكو كلا صارو إنتاسو مركا وحوي علمك مركا وحوي وقف كاستباع نفتيسا أبرنا يا بولي ضدك إنه إسقو أباهدان ومبرتبو ليه هل كانوا فيرسو وفاته قورتي ودنتي قورمو دنتي إمامكم وفاته قورتي ودنتي توفي إمامك وحد دنتي في شهر ربيع الأول بشو مركا ربيع الأول سنة كنو أها 179 الهجرة أيو مركا جيريودي في المدينة مدينوكو جيريودي ودفن وحلقو آسي بالبقيع حبالها بقيع بالغو آسي حبالها بقيع أصحاب بدن كودا يكو آسيين مدينة أيا لغو آسي الشيخة قورما في خلافة مركو دولة الإسلام كو هايستي هارون الرشيد تلد إسلام كمركو هايستي أيا مركا هلكا لغو آسي بويري وكان إمامكو يعني هارون الرشيد ومركي دولة العباسية هايستي وي دولة دي عباسيين تي مركي حكم كي تلد إسلام كي هايستين وهقامي وقانك وهايستي هارون الرشيد هايستي أيا مركا أوغيريدي وكان إمام كوحا يوم مات مالنتو دنتي ابن 85 سنة شن يسدي تنشربوها إمامكم مالنتا أوغيريدي سيدا درتد أرضيي
casharkaasi waa cashar yar oo iska kooban laakiin waxaan ugu talagalay waa soo koobid weey inaad buuggaaga adigu dib ugu noqotid oo waxa weeye casharkani waa casharka meelaha su'aaluhu ay kaaga imanayaan weey ardayay waxa halkaa inoogu qoran oo markaa waxa weeye ina tusay inaan layli isku diraabay ahayd laakiin layliga waa layliga buuggaaga ka shaqee su'aalaha buugga kuugu daabacan ee kuugu yaalla buuggaaga adigu taasaad ka shaqaynaysaa markaad casharkaa fahamtid kadib meelaha su'aaluhu ay kaaga imanayaanna aad iskaga eeg ardayay waxa weeye intaasi waa iga dardaaran inta inahaasaan ku soo koobaynaa casharkii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh